أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا مركلبات وحن لي هاي مانتا وحام هادس كله الله سو ينوفذ ذي إن كل النهال كان الله سو ينوفذ ذي إن أنيجي يو تيم كيجا أن سمينو project تجاسو كسابسن سوبر ماركت intaanan projectiga aan guda galin waxaan rabaa inaan idin sheego wax aniga ku saabsan. horta magacaygu waa Cabdifataax Maxamed Xaaji Munye, waxaana dhigtaa College of CET. College of CET waxaa laga wadaa sidaan wada naqaano College of Computer Engineering Technology. sidoo kale waxaan ahay faculty waxaan dhigtaa la dhahayo BIT semesterkeyguna waa semester 6. so maanta waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo project la magac baxay supermarket. projectigaas aniga iyo teamkeyga wuxuu nagu qaatay inaan sameeyno muddo dhan 4 bilood ilaa 5 bilood. projectigaas wuxuu quseyn doonaa ama wax u ahaan doonaa warbixin marka laga hadlayo suuqa kala iibsiga projectiga marka dhowr shay uu ka kooban yahay. projectiga wuxuu ka kooban yahay first of the projectka wuxuu ku soo kacaa splash screen first interface ka kadib waxaa lagu galaa projectiga wax loo yaqaano login kaas oo noqon doono qofka adminka ama qofka userka ah inuu ku galo projectiga uu gudaha u sii galo. si aan projectiga gudaha ugu sii galo waxaan ku gali doonaa loginka ama username-ka aan isticmaalayo oo ah iyo waxaan ku gali doonaa passwordkeyga oo ah. kadib waxaan gudaha u sii galay projectigeyga. so marka projectiga aan gudaha u galo projectiga wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr shaydaas oo kamid ah filekaas oo ku jiri doonaan wax loo yaqaano user privilegeska, sidoo kale registration file iyo sidoo kale transaction file iyo sidoo kale report file iyo sidoo kale developerska programkan dadka iska caawiya ama dhisay iyo sidoo kale meesha loogu bixi lahaa programka. so programka markaan bilaabayo waxaan ku bilaabi doonaa maadaama aan isticmaalayo waxa uu yahay aan isticmaalayo tusaale ahaan aan joogo supermarket waxa loogu baahan yahay waxaa ka mid ah in qofka horta oo supermarketka iska leh inuu alaab soo iibsado kadibna alaabta uu gado. so registrationka aan sameyn doono wuxuu noqon doonaa inaan alaab aan soo iibsado kadibna alaab aan iska iibiyo. so si aan u bilaabo alaabta iibinteeda ama soo iibsashadeeda waxaa khasab igu ah inaan tago wax loo yaqaano items. so itemskaan tagi doonaa. markaan itemska tago waxaan dhihi doonaa itemska markaan tago waxa ugu horeeya oo item laga diiwaangeliyo waxay noqon doonaan item ID. shay walba waxay ku xiran tahay qaabka loo diiwaangelinayo. markii shay la diiwaangelinayo waxaa loo baahan yahay in laga diiwaangeliyo itemkaas oo noqon doono waxyaalaha aan soo gadan doono. so itemka wuxuu yeelan doonaa wax loo yaqaano ID-gaas markaan rabo inaan sameeyo waxaan dhihi doonaa new. markaan new dhaho waxaan qori doonaa magaca itemka aan rabo. tusaale ahaan itemka aan rabo wuxuu noqon doonaa first. waxaan dhihi doonaa itemka aan rabo waxaan ka dhigi doonaa computer aan ka dhigi doonaa Dell. sidoo kale itemska waxay leeyihiin type noocyo kala duwan. noocay rabtaa uu idhihi doonaa programka kadib waxaan dooran doonaa nooca markii laga hadlaayo computer wuxuu noqon doonaa ama Dell magaca computerka waaye oo PC-ga laakiin typekiisa wuxuu noqon doonaa wax loo yaqaano item type. nooca electronic miya food miya mise waxa waaye cosmetics. so waxaan dhihi doonaa wuxuu noqon doonaa electronic uu noqon doonaa electronic aan doorana. kadib waxaan gelin doonaa meeqa xabo item aan rabaa inaan soo gato. waxaan u baahanahay inaan soo gato 50 xabo oo kale 50 items oo ku saabsan Dell. sidoo kale waxaan leeyahay meeqan ku soo gada sell price meeqan iibina itemskaas. waxaan iibinaa tusaale ahaan computerka waxaan iibinaa $350.
so $350 hadaan iibiyo computerka so aniga meeqan ku soo iibiyay tusaale ahaan aniga waxaan ku soo iibiyay si aan faa'iido u helo waxaan leeyahay waxaan ku soo iibiyay $300 $300 kadib waxaan dhihi doonaa total price ka meesha ka soo muuqan doona wuxuu noqon doonaa quantity-gayga caadiga ah yani quantity-ga oo alaabta aan haysto oo lagu dhuftay yani quantity-ga alaabta aan haysto oo lagu dhuftay purchase-ka alaabta aan ku soo gatay so markaas waxaan siin doonaa browse image sawir aan siin doonaa item-kayga markaan item-kayga sawir siiyo waxaan dhihi doonaa save so item-kayga waan save gareeyay kadib waxaan leeyahay markaan item-ka save gareeyo item-ka markaan save gareeyo yani aan xareeyo waxaan soo gatay items so waxaa la rabaa itemskaas inaan sales u sameeyo ama aan iibiyo si aan u iibiyo waxaa jiro form kale loo yaqaano sales formkaas aan tagi doonaa markaan sales formka tago waxaan leeyahay sales markaan dhaho saleska wuxuu leeyahay isna id u gaar ah laakiin id-gaas wuxuu kasoo aqrin doonaa wax loo yaqaano items so markaan saas dhaho waxaan dhihi doonaa new sidii hore oo kale markaan new dhaho waxaan dooran doonaa combo box aa jiri doono combo boxkaasoo laga soo xareyn doono ama laga soo qaadan doono itemska kuu diiwaangashan magacooda so markaan rabo inaan soo diiwaangeliyo magaca itemka waxaan leeyahay item name aan dooranaa so item nameka aan u baahanahay waxa aan doortay maxay ahayd wuxuu ahaa del so waxaan dooran doonaa del so nooca iyo wuxuu soo bixi doona marka type-ka iyo totalka aan haasto iyo waxaa soo bixi doono total purchase-ka iyo sidoo kale waxaa soo bixi doono sell price-ka so marka meeshaas aan joogo waxaan leeyahay quantity meeqa xaba ayaan rabaa inaan gado so waxaan leeyahay tusaale ahaan laba xabo inaan gadaan rabaa so labada xabo markaan gadaayo quantity-ga wuxuu noqon doonaa marka remaining quantity-ga wuxuu ka yani total quantity-ga waxaa ka jarmi doono quantity-ga hadda aan gadaayo so quantity-ga hadda aan gadaayo wuxuu noqon doonaa laba xabo so labada xabo aan ka jaray waxay noqon doonaan wixii soo baxo remaining quantity kadib waxaa lagu akhrin doonaa database-ka itemska waxaa la gelin doonaa kontonkii xabo ah waxaa laga jari doonaa labadaas xabo saasuuna ku safgareysmi doonaa okay waxaan leeyahay sell meeshan waxaa ka soo baxday konton xabo ayaa waxaan ka jaray laba xabo kadib waxaa ii soo baxday remaining quantity oo gaaraya $48 يعني 48 xabaan ka wadaa so qiimahoodana wuxuu noqon doonaa total saleska aan iibinayo $700 kadib waxaan leeyahay save so markaan save gareeyo wuxuu idhi doonaa item ID-gaaga yani waa hal item ID ayaa lagu gaday hal item yani item name-ka yani waxaa lagu gaday laba computer lagu gaday maadaama aan dal gadaayo laba computer oo PC ayaa lagu gaday ayuu idhi doonaa kadib waxaan leeyahay okay so waxaan sameyn doonaa marka lastly programka waxaa jiro waxa la dhahayo report laga soo muujiyo waxa la gaday waxa aad soo gadatay report lagu soo muujiyaa jiro reportkaas aan sameyn doonaa reportka markaan sameynayo waxaan leeyahay reportka waxaan ka dooran doonaa wax loo yaqaano waxa aan sameeyay waxa waaye items iyo sales so waxaan dooran doonaa items waxaan ka arki doonaa marka all items aan ka dooran doonaa one item aa jiro yani reportka lagu soo muujinayo laba nooc noqon karaa in report guud in lagu soo muujiyo ama special report searching ku sameyn doonto laakiin hadda waxaan isticmaali doonaa anaga maadaama waxaan isticmaali doonaa report gooni ah yani all reportska oo itemska aan gaday tusaale ahaan meeshan waxaa ku jiro Mac laptop oo hore aan u gaday iyo waxaa jiro computer yani oo hore aan u gaday iyo sidoo kale waxaa jira hadda item aan gaday oo Dell ah quantity waxaa igu jirto 48 xabo maadaama aan hore u gaday laba xabo so haddana waxaan sameyn doonaa projectiga lastly meesha ugu dambeeyso waxaan dhihi doonaa projectigeena dadka sameeyay magacyadooda ayaan ku xusi doonaa meesha waxaa projectiga dadka sameeyay waxay gaarayaan ilaa iyo 13 qof yani kulligooda projectiga way wada sameeyeen dad waxay lahaayeen fikirka dad waxay lahaayeen codingka dad waxay lahaayeen database connectionka dad waxay lahaayeen yani la talinta qof walba wuxuu ka hadlayay qof walba ra'yigiisu ka dhiibanay marka waxaan gaarnay ilaa 13 qof waxaana projectigan uu nagu qaatay sida aan hore u sheegay muddo dhan 4 bilood ilaa 5 bilood so projectiga insha Allah halaan ku eekaan doona sidoo kale mar labaad waxaan mahad u celinayaa ardayda igala qayb qaadatay inaan projectigan sameeyo sidoo kale mahad kale waxaan u celinayaa
dadka agaasimay inaan sameeyno project noocan oo kale waxaan leeyahay waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh